haddii aad sanjabiisha iska badisid xadkii loogu talagalay in ka badan aad isticmaashid maxaa kuugu dhacayo dhibaatooyin aad iyo aad u badan khaasatan dhanka qalbiga iyo dhiigbax tiro badan sidoo kaleeto sanjabiisha faa'iidooyinka ee leedahay ee caafimaad wax badan ka ogaaw nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala nagu maneystayne baro faa'iidooyinka ay leeyihiin fadlan daawo videogan bilaabi ilaa iyo dhammaad sida aad wax walba u ogaatid ugu horeyn intaan videogeena gudagalin haddaan ugu cusub tahay soo dhawow haddii aad weli subscribe noo saarin fadlan subscribe noo saar oo gambaleelka furo sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco anagana dhiirigelinaya noo tahay mahadsanid bismillaahi alfataaxi alcaliim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alkariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada kuwiin hsom waan idin salaamay meel walba oo dunida ka joogtaan iyo xili walba oo idin tahay waxaan idin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina asxaabta cusub asxaabta hore u joogtay soo dhawaada kusoo dhawaada qalbi furan aad iyo aad ay u mahadsantihiin waa mahadsantihiin inaa idin dhoone marnaba kama daalayi kamana caajisayi man laa yashkuri innaas laa yashkurillah mar walbana waxaan idin leeyahay dhoola cadeeya dhoola cadeyntu waa sadaqo sidoo kaleeto qalbiga ayay saaxiib la tahay asxaabteyda qaaliga ah maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay leedahay sanjabiisha iyo khasaarada ay leedahay sanjabiisha waa nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala nimco ka mid ah ee nagu maneystay waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka ogaatiin alxamdulilah ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa mar walba mahad iskale oo wax walbo adduunka noogu dhammaystiray kuwii ka faa'iideysto wanaagiisa ilaaha naga dhigo shartiisana ka leexdo allahumma aamiin asxaabteyda qaaliga ah ugu horeyn sanjabiisha ilaa anaga awoowayaasheena markaa yareen ayeeyooyinkeena waxay noogu sameyn jireen markuu qofka hergab ku dhaco waa loo karin jiray taasi wax aan ognahay waaye laakiin waxaan rabaa faa'iidooyin badan oo qofka bini'aadanka caafimaad ahaan uu u leeyahay iyo caafimaadka khasaarihiisa wax walbo cagsigiisa ayaa maanta ka hadli doonaa faa'iido iyo khasaaro oo sanjabiisha ay leedahay fadlan ha ku caajisin videoga waa muhiim siina sheer garay sida dad badan aysan ogeen ay u ogaadaan marka ugu horeeyo sanjabiisha maxay faa'iido noo leedahay sanjabiisha waxay faa'iido u leedahay jirkeena in ay sunta ka nadiifiso sidoo kaleeto ka hortag oo bakteeriyadana sidoo kaleeto way kaa dilaysaa waxay kaloo ay sameysaa difaaca jirka ayay xoojisaa qofka difaaciisa hadduu mar daciif noqdo wax walba way u fududahay cuduro badan ilaahay hanaga najeeyo marka kuwii dadaalana ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo oo daawooyinka Allah subxaana wa tacaala uuna siiyey ka faa'iideysto ilaah hanaga dhigo aamiin markaas xabteyda qaaliga ah sanjabiishu intaaseeti oo kaliya kuma eko faa'iidadeeda faa'iidadeeda aad iyo aad ayay u tiro badan tahay haddii aad rabtid in aad iscaayteysid oo kaleeto sanjabiisha aad iyo aad ayay kuugu fiican tahay oo aad ayay u dhalaalisaa xeerta haddii aad rabtid qaab isku caateen inaad u isticmaashid waxaa sameynaysaa sanjabiil iyo waxaa isku darsanaysaa liindhanaan kadibna wax yar malab ayaa ku darsanaysaa kadibna waa cabaysaa sanjabiisha ilaa intee qofka bini'aadanka loo ogol yahay maalintii inuu cabo maalintii hadduu jirkaaga ku cusub yahay oo hadeertaan aad bilaabaysid maalintii hal koob waa inaa cabtaa haddii aad hore u taqaanay oo sanjabiisha aad cabi jirtayna maalintii 2 koob ka badan waxay kuu keenaysaa dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan dhibaatooyinkaaseetina waxaan ku xusi doonaa isla videoganeeti dhameyso sidaad u ogaatid insha Allah sidoo kaleeto haddii aad qabtid hargab ama dhuun xanuun dhuunta aad iyo aad ku xanuuneyso sidoo kaleeto sanjabiisha aad iyo aad ayay ugu fiican tahay koob sanjabiil haddaad markaas cabtid faa'iidooyin badan ayay leedahay hadeertaan waxaan u guda galaynaa asxaabteyda qaaliga dhanka khasaaraha ay sanjabiisha qofka bini'aadanka u keento number 1 sanjabiisha oo calooshaada oo baahan aad cabtid dhibaato noocee ayay ku keeni kartaa waxay ku keeni kartaa in ay calooshaada ku furto ololkaaseeti oo caloosha kaa gubayo gubitaankaas caloosha gubaneysana dhibaatooyin badan ayay calooshaada u saameyneysaa oo dhibaato badan ayay ku keenaysaa
sidoo kaleeto khasaaraha kale uu ku geysan karo haddii aad sidoo kale sanjabiisha si xad dhaaf aad u cabtid ama xadkii loogu talagalay ay ka baxdid. sida mar walba la sheegaba wax walbo haddii aad sida loogu talagalay aad u isticmaalin ama xadkii loogu talagalay aad dhaaftid wixii aad faa'iidadii aad ka sugaysa maahane khasaaro ayaad ka helaysaa. marka haddii aad sanjabiisha xadkeeda dhaaftid maxaa kugu dhacayo? khaasatan haweenka haddaad tahay waxaa kugu dhici karo in dhiigbax uu kugu dhaco. sidoo kaleeto haddii oo qof caadi aad tahay xitaa rag haddii ay wax ku saraan sanjabiishu dhiigga ayay nadiifisaa. haddii dhiigga bilaa xad aad u nadiifisidne dhibaatooyin badan ayaa ku imaanaya. haddii aad isartid ama wax ku qalo waxaa laga yaabaa dhiigaaga in uu joogsanin. sidoo kaleeto khasaaraha kale ee sanjabiisha qofka biniaadanka u geysato waxaa waaye waxay kugu kicinaysaa. qof walba wuxuu leeyahay meel walba waxay leedahay jihaas waxaa laga wadaa matoor camal waaye. matoorkaas ama shaygaas jirkaaga ku jiro qeybta casaabta ama qeybta xanaaqa aad iyo aad ayay kugu kicinaysaa haddii xadkeeda aad dhaafisid. waxaana laga yaabaa madaxaba inuu dhiig kugu furmo. ilaahay hana xafido. asxaabteeda qaaliga ah intaaseeti ka farjignaada in aad sanjabiisha si xad dhaaf ah u cabin. markii aan sii wadno faa'iidada sanjabiisha waxaa waaye sanjabiisha waxay ku sameynaysaa waa xanuun baabi'iye haddii caloosha ama aad lagu maroojinayo aad iyo aad ayay ku caawinaysaa. haddii koob sanjabiil aad cabtid hadduu oo hergab ku hayo waxaa fiican inaa cabtid haweenkii markaad seexanaysid hal koob inaa cabtid. haddii aad iscaateynaysidna waxaa fiican oo markaaseeti aadan hore u bilaabin subaxdiina koob haweenkiina koob inaa cabtid. laakiin hadduu kugu cusub yahay inaa hal koob cabtid. laakiin waa inaa cunto ha yaraatee wax aad cuntid kadib aad sanjabiisha cabtid. calooshaadoo baahan sanjabiil ha cabin sida dhibaato ay kugu keenin. inta aad faa'iido raadinaysid dhibaato ha isku keenin insha allah. mar walbo ka ilaali calooshaada oo baahan in aad sanjabiil cabtid. sidoo kaleeto waxay sameysaa haddii aad isdhaawacdid dhaawac yar oo khafiif ah oo aad meeshaseet xanuun kaa hayo haddii aad sanjabiil saartid meeshaseeti way ku yara degaysaa. waxaa rajeynayaa faa'iidooyinkaneeti inaad ka faa'iideysan doontiin oo aad meel ku qoran doontiin ama maskaxdiinaba ku qoran doontiin. anigaba ma ogeen sanjabiisha waxaan cabi jiray maalintii 2 koob 3 koob waa iska cabi jiray markaa hirgabsanahay. laakiin mar walba waxaa fiican serjin iyo macluumaad badan inaad haysatid. haddii aad macluumaad badan heshid wax badan oo haadan hore u ogeen ayaad ogaanaysaa. marka waxaan kaa codsanayaa inaad videoganeeti sii share gareysid. hadiiba ilaa intaan soo gaartay waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhageysiga aad dhageysatay. sidoo kaleeto waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysatay. waxaana mar walba allah subxaana watacaala ka baryayaa inaa faa'iidooyinka aan idiin soo gudbinayo haba yaraatee inaa wax aad ka faa'iidiin. jazaakallah khayr ayaan idin leeyahay. waa ku mahadsantihiin dhiirigelintiina la joogtiina sida aad videoyadeeda iigu sheer gareysiin. shacab iyo youtuberba waxaan idin leeyahay jazaakallah khayr inta ii sheer gareysay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. faa'iidadeena sanjabiisha maanta intaan ayaan kusoo ekeenayaa. faa'iidooyinka aad ayay u badan yihiin laakiin marabi videoga inuu xadka ka baxo amaba sii dheeraado. sidaas darteed intaan ayaa kusoo gabagabeynayaa. haddii aad videoga ka heshid waxaan kaa codsanayaa inaad like saartid. sidoo kaleeto aad usii sheer gareysid ehelkaaga iyo asxaabtaada iyo meel walba oo baraha bulshada ah sida dad badan ay uga faa'iideystaan. waxyaabaha qaar waa muhiim. ha baqiilsanin, ha dhaliilsanin. faa'iidadaas yar oo qof walaalkaaga ka faa'iido adigana ajar ayaad ku leedahay. inta aan video lamid ah ku kulmeenan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaana allah.